isiinin lacag waa kugu soo dhagaya ama waxaan rabaan kaa sheegaya dabcan nimco dee waa qoftaas iska afgaaban oo sida aan wada ognahay intaas bala raadinayo social media shaqo ku lahayn hadday soo gashaan si sharaf leh u soo gasho hagaag saxaabta ku soo dhawaada muuqaalkan kooban oo aan rabno inaan uga hadalno arrinta ku saabsan Shiina Culey oo weydiistay lacag baad ah fanaanada caanka ah ee Nimco Habi haddaba ma garanayno sida ay hadalkan run u yahay ma fahmi karno mana sheegi karno lamana joogin mana cadayn karno hadalkan inuu yahay mid xaqiiqo ama in kalo hase ahaatee waxaa arrintan nala wadaagay Nimco Habi gabar la dhalatay oo cadaysay amaba sheegayso in uu Shiina Culey soo wacay Nimco Habi hase ahaatee aysan waqti isla helin arrimo la xiriiro Nimco Habi oo iska mashquulsanayd wuxuu la sheegay inuu u hambaliyay Nimco Habi laakiin uu u hanjabay in uu ku dhagi doono ama uu ceebeyn doono hadaysan lacag siinin haddaba hadalladan sida ay tahay annaga ma xaqiijin karno laakiin waxaan la hadalnay amaba aan rabnaa inaan idinla wadaagno Nimco Habi walaasheed oo arrinkan ka hadlayso waxaan la soconaa in Shiina Culey uu soo dhigay bartiisa YouTube-ka iyo waliba Facebook-ga asagoo Nimco ka hadlaya muxuu Nimco uga hadlayaa wuxuu yiri ninkii horay ugu daadiyay hadda markii lacag heshay buu ninkii jeclaaday saanu sameeyay waxa soo dhan waxba kama jiraan intaas kuma ekaan Shiina uu soo wacay lacag uu weydiistay waxa dabcan Shiina taaj been kuma bixino Nimco intuu soo wuxuu yiri hadaadan isiinin lacag waa kugu soo dhagaya ama waxaan rabaan kaa sheegaya Shiina waxaan ognahay inuu isticmaalo magac qabiil asagoo laba qabiil isku diraya laba qabiil adeegsanaya kamana aan qabiilku ka dhashay oo macnaha uu leeyahay waa magaciisan ku socdaa waa been jeebkiisa u shaqaysanaya shaqadaasna raba inay idin guda galo Shiina wuxuu soo wacay Nimco isagoo u hambalyeynaya waa caadi waa wiil Soomaaliyeed Nimcana waa fanaanad qaran waa fanaanad Soomaaliyeed magaca Soomaaliyeedna matalaysa markuu soo wacayna wuxuu ku yiri waa ku hambalyeynaya aad u mashquulsanayd qof aroos waa dareemi kartaan qoraal uu soo qoray halkaana idinka tusi doonaa uu soo wacay waa qof aroos ah qof aroosna waa la dareemi karaa kadibna wuxuu soo qoray abaa ku hambalyeynaya hambalyo intaas kuugu filan soo maaha inaad gabar Soomaaliyeed oo walaasha horumarkay gaartay aad u hambaliyeysid intaasna uga gudubtid intaas kuma ekaan Shiina uu soo wacay lacag uu weydiistay waxa dabcan Shiina taaj been kuma bixino Nimco intuu soo wuxuu yiri hadaadan isiinin lacag waa kugu soo dhagaya ama waxaan rabaan kaa sheegaya dabcan Nimco waa qoftaas iska afgaaban oo sida aan wada ognahay intaas bala